asxaabiga kusoo dhawaada Runshaag Media Network. maanta waxaan isla fiirinaa sidee internetka Soomaaliya u shaqeeya, cidda maamusho qaybihiisa kala duwan iyo siduu dalka ku yimid iyo waxa Soomaaliya ay u baahan tahay si ay u yeelato internet casri ah oo ammaan ah. marka hore aan fahanno waxa internetku yahay. internetku waa shabakad caalami ah oo isku xirta malaayiin kombiyuutarro, taleefanno iyo serverro ku kala yaala dunida oo dhan. markaad furto website ama qorto fariin WhatsApp, xogtaadu waxay martaa marka shabakado badan kahor inta aysan gaarin meesha loo socdo. Soomaaliya marka internetka si weyn ayuu u faafay 20kii sano la soo dhaafay. bilowgii adeegyada internetka waxay ku shaqeyn jireen satellite-ka, taasoo ahayd qaali, gaabis, isla markaana aan xasilooneyn. markii dambe Soomaaliya waxay ku xirmatay fiilooyinkan fiber optica badda hoosteeda mara. fiilooyinkan ayaa ah marka laf-dhabarka internetka casriga ah. waxay isku xiraan qaaradaha dunida, waxayna awood u leeyihiin inay gudbiyaan xog aad u badan, xawaare sarena leh. marka qof jooga Muqdisho uu furo website, codsigiisu wuxuu marka hore maraa shirkadaha internetka isticmaala, kadibna xogtu waxay martaa fiilooyin fiber optica ee dalka ku xiran internetka caalamiga. ugu dambeyn waxay gaartaa serverka website-ka martigelinaya. laakiin sidaa ayuu kombiyuutarka ku ogaadaa meesha website-ka yaallo. halkaas waxaa soo galaya marka DNS oo loo yaqaan domain name system. DNS-ka waa nidaam u bedela magacyada website-yada sida google.com ama SO tusaale kale. marka ciwaanada IP-ga ay fahmaan kombiyuutarka. marka tusaale dusha sare nidaamka DNS-ka waxaa jooga ama waxa loo yaqaan root servers. kuwan waa serverro oo tilmaama meesha laga helo xogta domain-yada kala duwan ee internetka. inkastoo root serverka marka ama serverada ugu muhiimsan ay u kala yaalaan dalal badan sida United States, Germany, marka boqolaal joogo dunida ku baahsan. Anycast instance loo yaqaan si internet u noqdo mid degdeg oo xawaare leh oo xasiloon. Soomaaliya ma lahan root service gaar ah oo iyadoo leedahay ma lahan, laakiin balse waxay isticmaashaan nidaamka caalamiga ee DNS-ka la yiraahdo sida dalal badan oo adduunka. marka haddii aan cidda maamusho internetka Soomaaliya, marka hore waxaa jira Sonic oo ah Somali Network Information Center. Sonic waxay maamushaa domainka qaranka Soomaaliya ee .so. haddii qof doonayo website-ka domainka ama ku dhamaado SO, diiwaangelinta ugu dambeysa waxay martaa nidaamka Sonic. waxaa jira marka National Communications Authority ama NCA. marka waa hay'adda dowladda ee nidaaminta isgaarsiinta dalka. waxay bixisaa ruqsadaha shirkadaha, dejisaa xeerarka, waxayna ilaalisaa nidaamka guud ee isgaarsiinta dalka. shirkadaha isgaarsiinta ayaa iyaguna door muhiim ah ku leh, waxayna dhisaan taawarada isgaarsiinta, fiber optica, xarumaha xogta iyo adeegyada internetka ee dadku isticmaalaan maalin kasta. marka laga hadlayo amniga internetka, waxay weli ku jirtaa marxalad horumarineed. dunida maanta weerarada internetka waxay saameyn runtii karaan dowladaha, bangiyada iyo shakhsiyaad. sidaa darteed marka waddan kasta wuxuu u baahan yahay nidaam adag oo cyber security ah. taas waxaa ka mid ah ilaalinta kahortagga jabsiga internetka, la socodka iyo khubarada amniga internetka. Soomaaliya marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay oo ka maqan maanta data centers. si xarumaha xogta loogu keydiyo waa muhiim. Soomaaliya ma lahan data centers waaweyn. marka labaad, internet exchange points ma lahan. badanaa shirkado internetka si toos ah ugu kala bedeshaan gudaha Soomaaliya. marka saddexaadna waxay u baahan tahay Soomaaliya cyber security oo si joogto ah ula socda khataraha. marka afraad, fiber optic gobolada dalka oo dhan isku xiro si network-ka oo u noqdo ama internetka Soomaaliya kuwa degdeg ah. marka shanaad, waxay u baahan tahay tababar iyo horumarin u baahan dhalinyarada Soomaaliya oo ku takhasusay ICT-ga iyo cyber security-ga. haddii arrimahan la hirgeliyo, Soomaaliya waxay yeelan kartaa internet xawaare leh oo runtii amni badan kana madax bannaan dhinaca farsamada. gabagabadii marka internetka Soomaaliya maanta waa qayb ka mid ah internetka caalamiga ah. waxaana wada shaqeeya hay'ado dowladeed, shirkado isgaarsiineed iyo ururo farsamo caalami ah. mustaqbalka horumarinta kaabayaasha internetka iyo amniga cyberska ama cyber security-ga waxay dhahaan marka ama noqon doonaa marka furaha kobaca dhaqaalaha digitalka ee Soomaaliya. mahadsanidin asxaabay. aad ay muhiim u tahay arrintaas aan mar labaad ku xoojiyo ama ku celiyo. Soomaaliya waxaa runtii ka maqan maanta ee u baahan inay yeelato data centers waaweyn oo lagu keydiyo xogaha internetka iyo guud ahaan cyber security-ga ama amniga la socodka internetka. khataraha ama threat-ka waxay dhahaan cyber security threat-ka, khataraha internetka, iyo in runtii la tababaro khubaro dhanka amniga internetka iyo la socodka xogaha dhaqdhaqaaqa shirkadaha, muwaadiniinta, bangiyada iyo guud ahaan dowladda. aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay taasi waxay keenaysaa in amniga guud ee internetka Soomaaliya uu noqdo mid xooggan oo la isku halayn karo.
wacyigelinta ama aqoonta in sare loo qaado dhalinyarada ICT-ga baratana aad ay muhiim u tahay si markastaaba Soomaaliya amnigeeda uu noqdo dhanka internetka mid xoogan data centers waaweyn dalka loo yeelo si xogaha dalka loogu keediyo aad muhiim u noqoto oo runtii Soomaaliya u noqoto amnigeeda internetka mid isku halayn karo maalgelin ama shirkadaha maalgashada investment ku sameeyaan runtii ay isku halayn karaan waana runtii arrin aad muhiim u ah maanta dalka waa soo kabma markii investment lagu sameeyo ama shirkado caalami ah dalka investment ku sameynayaan waxaa muhiim ah inay focus saaraan amniga xogta internetka Soomaaliya inay tahay mid isku halayn karo bangiyada lacagaha transferka ku dhacaya ama la kala xawilanayo iyo hanaanka guud ee cyber security guud ee dalka oo dhan iyo informationka muwaadiniinta runtii aad muhiim u tahay marka guud ahaan shirkadaha dawladda iyo bangiyada waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan arrintaas dawladuna ay u noqoto laf dhawr ama center u noqoto arrintaas ilaaliyo that's why aan leeyahay dalka Soomaaliya maanta ma lahan data centers waaweyn ama xarumo xogaha lagu kaydiyo aad muhiim ah marka si ay u noqoto Soomaaliya dal isku halayn karo dhanka amniga internetka waa very important arrintaas waxaan rajaynayaa xoog la saaro oo shirkadaha isgaarsiinta dawladda iska wada kaashadaan si guud ahaan Soomaaliya u noqoto wadan ka caagan khataraha internetka iyo weerarada internetka ee loo adeegsado shakhsiyaadka dawladaha iyo bangiyada iyo xarumaha cilmi baarista iyo xarumaha maaragtay muxuu ahaay wasaaradaha kala duwan ee dawladda ee muhiim u ah ama laf dhabarka u ah sida arrimaha dibadda oo kale iyo kuwa ilaalinta badqabka muwaadiniinta ama intelligence oo kale runtii marka aad muhiim u tahay arrintaas xoogga la saaro share subscribe gareeya asxaabtiin la wadaaga qayl axmed inta rajeyna aragtidiina qaybta soo comment ku soo qora inta muuqaalku waxaan isku arki doonaa waxaan rajeynaa qayl caafimaad bye